وفرحة يا شرف إن maanta wada afurno maalin barakeysan kulanno maalmuhu isku mid maaha maalmaha waxa uu fiican maalmaha aad la kulanto dhalinyaro hawlkara xilkasa madaalayaal garasho loo dilkooda jecel marka maalinta aan kula kulmayo dhalinyaro ee haddana Ramadaan oo maalin khayr qabto weey sidoo kale waxaan doonayaa inaan dhowr kalmood ku dhaahdo haday taageertaan codkiina ay siisaan waxaan garanayaa sababta ay taageerisaan waxa weeye inaan ka duwanaado siyaasigii hore golihii deegaanka hore waa aragteen hargeysa halkay dhigaan waynu aragnay marka waxa iga filaysaan marka ugu horeysa inaan mudane ka duwan mudanayaasha hore noqdo waxa kaloo iga filaysaan inaan idin sameyn karo haddii alle halkaan u socday gaarsiiyo hargeysada jeceshihiin inaad ku noolaataan hargeysa aad ku tiraahdaan marka sawir iskaga dhex qaadaan adduunka caasimadeeda aniga waatan maanta adduunka sidaa kuma odhan kartaan waayo haddaad tiraahdo hargeysadeedu waa tan ama caasimadeedu waa tan sawirku wuxuu qabanayaa waddo go'an sawirku wuxuu qabanayaa xashiish sawirku wuxuu qabanayaa magaalo isku mulaaqan sawirku wuxuu qabanayaa sixmad iyo wadaan meel la maro la leeyahay sawirku wuxuu qabanayaa magaalo buska iyo boodh leh sawirku wuxuu qabanayaa ari iyo geel daaqaya magaalada dhexdeeda sawirku wuxuu qabanayaa garoomaad ku ciyaarto wanaagsaneyn marka sawirku wuxuu qabanayaa magaalo aan lahayn meelo ama beero nasasho oo aad maartay aad wax ku dhex akhrisato fadhiisato marka maanta ma faani kareysid marka waxaad naga filaysaan qolada soo socotay inaan idin sameeyno magaalada oo qalantaan ee qof dhalinyaro uu ku noolaan karo ama qof bini'aadam uu ku noolaan karo aniga waxaan kamid ahay kuwa isu soo sharaxay inay hargeysa ka dhigaan magaalada lagu faanayo hargeysa waanu jecel lahay waanu ku soo kornay intaasaan ku leekaanay hargeysa abaal baynu ugu leedahay abaalka waxaan ugu celinaynaa marka haddiina la doorto inaanu hadhiyahay baynu shaqeyno si hargeysa aan uga dhigno magaalo qurux badan oo adduunka la tusi karo oo lagu faani karo hargeysa qof bini'aadam ku noolaan karo hargeysa hooyadu ku cilbaxdo hargeysa ilmaha yar dhalinyaradii uu ku faraxsan inay magaaladiisi tahay oo ka helayo meel qurux badan oo ku nastiyo meel ku ciyaaro labadaba anigu waxaan ahay kelmadaha caan baxay ee Soomaaliland qurux badan xilligan idhi way sumad bay leedahay aniga ugu horeeyay oo Soomaaliland qurux badan la wada leeyahay magaalada Buurama ka idhi haddaan sidaa idhi Soomaaliland qurux badan la wada leeyahay waxa ka bilaabmaysaa magaalo qurux badan caasimad qurux badan bay ka bilaabmaysaa marka haddaanu in badan u yaryarnay Soomaaliland qurux badan haddaanu marka golaha deegaanka soo sharaxnay halkaan u soconaa wax weeyaan abuurno magaalo qurux badan caasimad qurux badan oo reer Soomaaliland dhimay wada leeyihiin caasimad cid gaar ah ma sheegan karteen waxaad marar badan maqasheen ama kilibiyada duubeen anigoo idin kule waxaanu u baahanahay siyaasi dadkiisa u shaqeeyo oo aan ka shaqeysan dadkiisa haddii aan markaana doorataan aanu idin ka shaqeysano kuwa kale may oran baa laga yaabaa iyadoo duuban lama hayo aniga laakiin waa la hayaa anigoo leh Soomaaliland waxay u baahan tahay siyaasi u shaqeeyo oo aan ka shaqeysan marka aanu noqon maayo kuwa idin ka shaqeeyo waxaan noqon doonaa kuwa idin shaqeeya noqon doona waxa kale oo doonayaa inaan idinku bushaareeyo haddii matalaadi jirto matalaad ugu fiican baan idin matali doonaa waxaan idinku matali doonaa idinkoo soo gaari kara taladiina soo gaarsiin kara wixii sheegi kara adduunyadana dadka la doorto waxa talo ku kordhiya oo ay mataqaana la xisaabtamo dadkii soo doortay marka aanu idin la sugi maayo inta 5 sano dhamaanayaan waxaan noqon doonaa mid aan la xisaabtami kartaan maalin kasta week kasta bil kasta iyo sanad kasta la xisaabtami kartaan idin hor imanaya oo kala xisaabtamisan codkiina sidaan idinku matalay marka codkiinu waa amaanadaan in ilaalin doona baan ahay idinka maxaan idinka rabaa marka haddaan anigu doonayo inaan qofka noqdo haddaan doonayo inaan bedelo sidii wax ahaayeen haddaan doonayo sidii liidin matali jiray si ka duwan inaan idin matalo idinka waxaan idinka rabaa idinkuna inaan markan qaadaan iyo maalin cadceed ay istaagtaan baan ayaan idinka rabaa idinka baraya anigu laakiin waxaan idin siinayaa 5 sano waqtiga ka mid ah 5 sano oo waqtiga ka mid ah markaad eegto 5 sano ayaan codkaad maalin siisay ama 40 ka doorashada ka haray aad caawisay ee siday ayaan kugu bedelaya insha Allah doorka waynu guuleysanayna dad wanaagsan baa insha Allah soo bixi doona dad Soomaaliland jecel baa soo bixi doona hargeysa jecel baa soo bixi doona dad aan adduun doonahayn ee doonayo dadkooda inay ciil tiraan oo u shaqeeyaan baa soo bixi doona waxaan rabaa guulaynu wada leenahay inaynu gaadhno tacabkeedana aynu wada gallo oo saanuuba u tabcay inaynu guuleysano inay idinkuna ila tacabtaan ii dhistaan codkiina ay siisaan guusheegu la yeelataan igula xisaabtantaan 5 sanadood ee ka bilaabmaya haddii aynu guuleysano magaaladana hargeysa waan u ducaynayaa madax wanaagsan Allah siiyaan ugu ducaynayaa idinkana waan idin ducaynayaa inay heshaan caasimadda oo qalantaan inay ku noolaataan dhalinyarada idin la faca ilmaha yar ama nin qofka yar ee dhalinyarada ah ee reer Rwanda ah ee Kigali Ilaahay ku abuuray uma faani kartaadu kaad loo ma faani karaysid marka maanta dadaalka aynu rabnay inaynu isku geegina waxa weeye inaynu samaysano caasimad ama magaalo aad ugu faani karto ka aan sheegay Rwanda ku nool ama Kigali ku nool oo nu samayn karnaa haday kuwayna cabsi gelinay ay leeyihiin magaalo noocaas lama samaynayo kuwa le waanu samayn karaynaa fursadaas iyaan anagu waxaanu ka midnahay kuwa le waanu samayn karaynaa ummadaha adduunka ma dawarsadaan cashuur bay bixiyaan cashuurtooda wax loogu qabtaa anagu waxaan aaminsanahay hargeysa cashuurteeda oo la ilaaliyaa inay hargeysa bedelayso inay dadka nolol u sameynayso inay adeegyada
bulshada kor u qaadayso inay samayn karayso magaalo wanaagsan oo qurux badan oo nadiif ah oo lagu noolaan karo aniga waxa weeye waxaan dadkayga u soo bandhigay haddii alla i gaarsiiyo halkan u socdo inaan samayn doono magaalo qurux badan bilicsan cagaaran nidaamsan oo nadiif ah ninka ay ku adagtay inuu intaa sameeyaa isagay u taallaa anigu laakiin intaa waan ballan qaadayaa waana samayn karayaa waxaanan ku samaynayaa cashuurta aan dadka ka qaado oo aan ilaaliyo naftayda ka ilaaliyo qoyskayga ka ilaaliyo saaxiibada ka ilaaliyo shilin walbana halkii loogu talagalay uu sidiisa ugu baxo insha allah waan guulaysanaynaa kuwayna cabsi gelinaya doonaya inay jalaafada inoo dhigaan ma guulaysanayaan insha allah waan guulaysanaynaa guul fiican oo khayr qabtaynu gaadhaynaa dadkeennana waa u shaqayn doonaa haddaynu guulaysano haddaynaan xitaa guulaysanin dadkeenna waa matalaynaa si kalaynu u matalaynaa madaalayaal bay noqonaynaa idinkuna jidkaa soo haysaan aniguna de sanaduun baan idinka horreeyey guul aynu wada leenahay aynaan kala sheegan cidi idinka sheegan oon qabiil sheegan oon koox sheegan ayaynu insha allahu tacaala gaari doonaa guulaan idinku ammaano idinku mahadnaqoon sheegayn a idinku guushaa lahaydeen dhalinyarada hargeysana si gaara iyo reer somaliland magaala markaan le dhalinyarada hargeysa uma jeedo dhalinyarada la yidhahdo 4 xaafadood hargeysa waa caasimad dhalinyarada hargeysa waxaa dhalinyarada somaliland oo dhan marka insha allahu tacaala dhalinyarada jumhuriyadda somaliland hargeysa ku nool waxaan ka filayaa inay taageeraan iyaguna codkooda inayna siiyaan oo inagu aaminaan inaguna insha allahu tacaala cod kale ina siiya ammaanadiisa waynu ilaalin doonaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waan idiin ducaynayaa insha allah kulankana kii ugu horreeya noqon maayo kii ugu dambeeyana noqon maayo marar badan ayaynu isu soo noqon doonaa inagoo tale iyo maarata tusaale bay isdhaafsanayna guushana allah ina gaadhsiiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu